kulanti wacan wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada maanta mawduucan kaga hadlayo das perfect oo ah tenniska marka aad rabto shalay waxa aad sameeshay inaad ka hadashid English waxa la oran jiray present perfect tense laakiin Dutch wuxuu yiraahdaa das perfect xasuusnaada waxaan ka hadlaynaa waa participle spy waxa jira participle eins mar walbana loo isticmaaliyo haben ayaan ka hadlaynaa maanta waxaan soo qaadanaynaa afarta hab ee loo dhiso marka laga hadlayo baastiga ama wixii shalay aad rabto inaad ka hadashid afar tusaale ayaan soo qaadanaynaa ugu horeyso regelmäßiga verben ficilada regularka ama sharciga loo raaca leh sidoo kale waxaan tusaale ka soo qaadanaynaa ficilada mid iren ee u dambayso qaabka conjugationka loo isticmaalayo waxaana daawadayaal ogaataan mar walba conjugationka ama qaabka isku bedbedelaya ficilada inaad baratid waa very important marka aad baranaysid luqadda Dutchka ama Jarmalka waxaan sidoo kale soo qaadan doonaa regelmäßiga verben oo ficilada sharci aan loo raac lahayn qaabka participle ama das perfectiga loo isticmaalo waxaad xasuusnaataan regelmäßiga verben waa ficilada ugu dhibka badan laakiin sida baaritaan lagu ogaado ma badna ilaa ay waxa lagu qiyaasaa 300 oo eray isku day mar walba eray ku soo maray inaad qortid oo liis gareysid waxa sidoo kale kamid ah afarta hab ee loo dhisi karo das perfect ama wixii shalay dhacay tenniska ka hadlayo oo tusaalaha afraad waxaan ku soo qaadan doonaa trembare verben maxaa la yiraahdaa waxa la yiraahdaa waa separable verbs ficilo waa hal ficil oo laakiin laba eray ka kooban la kala sooci karo oo labadaas halkaas ficil laba eray loo kala saari karaa iyo kuwa laba eray ka kooban laakiin aan la kala sooci karin intaba waa ku soo qaadan doonaa ku soo dhawaada saaxiibayaal wata saaxiibayaal tusaalaha ugu horeeya waxaan ku soo qaadanaynaa regelmäßiga verben ficilada sharciga loo raaca leh asiga oo present wax hadda aad sameynaysid tusaale aan ka bilaabaynaa ich mache ein Foto ich waa la yiraahdaa ich way u qoran tahay sawir ayaan hadda qaaday marka aad wax mar hore aad sameysay ama shalay aad sameysay gestern aad ka dhigayso waxa leedahay ich habe ein Foto gemacht waxaad isticmaalaysaa verb haben waxaadna xasuusnaataan saaxiibayaal xasuusnaada participle spy ayaan ka hadlaynaa participle spy oo das perfect ah qaybta labaad kan koobaad verb sein ayaa loo isticmaali doonaa waana gooni cashir kale gooni ah waxaadna ogaataan mar walba waxa la isticmaalayaa qofka saddexaad ama RCS conjugationkiisa ama isbedelkiisa sida RCS kauft somahan presentigi pastigi waxa kaliya ah lagu daraa waxay tahay g waa g iyo e g aa lagu darayaa aakhirka ama jumlada dhamaadkeedana t aa lagu darayaa gekauft tusaale ahaan hadda kaufen ee ficilka infinitive-kiisa ama asalkiisii kauft uu noqonaa markii present conjugation lagu sameynayo pastiga wuxuu noqonaa marka gekauft example kama tusaalaha hoose fiiri Lisa had ein Handy gekauft Lisa waxay soo gadatay waaye mobile ein handy ma aha gacan waa mobile watahay daawada xusuusno mar walba markii participle ama das perfect wixii shalay dhaca ka hadlaysid sharciga regelmäßiga hana la joogo participle-ka ficilka horaantiisa waxa galaya g waxaana u dambeynaya t laakiin in regelmäßiga wuu ka duwan yahay waan idin tusi doonaa example-kiisa ama tusaalihiisa watahay tusaalaha labaad waa verben auf iren ficilada ee u dambayso iren tusaale ahaan telefonieren ganna way ugu dhawaaqaa niren waa dhigi kartaa laakiin inta badan hadalada lagu hadlo luqadda waa niren telefonieren marka ficiladan iren ee u dambayso iren ama iren tusaale ugu horeeya presentiga ama marka caadiga oo sabastiga ahayn waxay noqonaysaa RCS telefoniert ama telefoniert uu telefoon garay ama uu wacay soma bastiga marka maxay noqonaysaa fiiri tusaalaha hoose ich habe mit Opa telefoniert waatay daawada xasuusnaada sida presentiga hadda tusaalaha koobaad idin muuqdaba RCS telefoniert uu yahay bastiga waxba ka bedelma maayo waxa kaliya lagu soo siyaadinaa waxay tahay habe oo ah ficilka haysashada ich habe mit Opa telefoniert waa tusaalaha hoose aad idin muuqdo waana wax shalay dhaca waaye waxaan telefoon u diray waaye awoogay ayaan wacay shalay gestern ka hadlayaa waa participle spy
wuu ka sharci duwan yahay regelmeesigii hadda aan soo arkeen oo geeda lagu daraayay iyo teedana u dhammaanaysa wuu ka duwan yahay. marka ficilada iiran u dambeyso nidaamkan ayaa das perfect ama past wixii shalay dhacay looga dhigayaa oo iyaga ge ma lagu darayaa teena ma lagu darayaa xasuusnaada fadlan. markaan aan u imaano un regelmeesiga verben ficilada sharciga loo raaca aan lahayn ee ah ficilada ugu adag markii doojka la baranayo ilgooni u yeesha fadlan. tusaalaha koobaad aan soo qaadanay waa asigoo present aan laga dhigin wax shalay dhacay sida conjugation ama isbeddelka loogu sameeyo. tusaale ahaan ich sehe, du siehst, sieht, wir sehen. conjugation hadda maqashid waa sidaan qaabka markuu isku bedelayo loo bedelayo ficilka ayaa conjugation. markii aan ka hadlo oon dhaho conjugation ama conjugation Englishka sida ula socdo waa qaabkan ama nidaamkan. haddaba waxaan soo qaadan doonaa un regelmeesiga verben markii das perfect ama shalay wax dhacay ay tahay shuruuc u gooni ah asiga oo aad ku fahmaysid in uu yahay un regelmeesiga verben ee ku soo dhawaada. tusaalaha ugu horeeya idii sheegaya un regelmeesiga verben bil kulliyan iska ilooba sharcigii oo regelmeesiga verben aan ku soo baran ee ahaa in markii laga dhigayo wax shalay dhacay aan ku dareyno ficilka ge een u dambeynaysa te iska ilooba calaamadaas extra ama casaanka waxaan u saaray waxay tahay ha isticmaalin. haddaba sidee loo isticmaalayaa sidan ayaa loo isticmaalayaa xasuusnaada markii wax shalay dhac laga hadlaayo un regelmeesiga verben la joogo ficilka mar walba waa inuu u dambeeya an waa participle isfy markii aan joogno ee aan isticmaalnayno ficilka haben ila socda. infinitive-ka ama ficilka asalkiisa wuxuu ahaa sehen oo ah aragti waa tahay gesehen ayay noqonaysaa ge ayaa lagu darayaa ficilkan maxaa u dambeynaya an. okay marka regelmeesiga verben la joogay geedaas waa isticmaalaynay laakiin an maya ficil ku dambaysa maya xasuusnaada te ayaa u dambaysa waxyaaba ay u kala duwan yihiin waa inaa xasuusnaatiin. waa tahay eeg oo fiiri tusaalaha hoose hast du den film gesehen ma aragtay ama ma daawatay filimkii markii ficilka haben haas lasoo hormariyay waa su'aal sameeye. waa tahay tusaalaha afraad ee aan ku soo qaadanayno cashirkeena maantay ka hadlaaya das perfect wixii shala dhacay qaabka loo dhiso ama loo isticmaalo waxaan ku soo qaadanaynaa sidoo kale ficilada trembare verben sida loo dhiso. waa maxay trembare verben waa separable verbs waa ficil laba eray ka kooban ee la kala sooci karo ama la kala qaadi karo. waayo tusaalaha koobaad waxaan ku soo qaadanaynaa rcs waa present wax ficil iska caadi oo markaas dhacayaan ku soo qaadanaynaa rcs macht auf waa laba eray laakiin hal micno sameynaya. macht auf waa maxay waa furis iyada ama asiga wuxuu furay ama waxay furtay waay. okay marka haddii aad aragtid laba eray oo saan iskula socdo ayaa waxaa la yidhahdaa oo hal ficil ah ayaa waxaa la yidhahdaa trembare verben. micnaha trembare verben wax kale ma ahane waa la kala sooci karaa waa la kala qaadi karaa waa hadda saa ujeedaanba auf English ahaan on ee noqonay preposition ee noqonay preposition maakhina sameyn waay oo make waay laakiin waa isku hal micno isku hal eray yani waxaan kala jeedaa hal micno ayuu jumladda sameynaysaa waa laba eray oo la kala sooci karo jumladda waa la kala saari karaa laakiin hal micno ayay wadataa sidaa ula socda. aanu imaado marka mawduuceenu ahaa das perfect wixii shala dhac markaan tusaale u soo qaadanayna ich habe die tu aufgemacht ayaa la oranayaa oo lagala jeedo yani waan xiray albaabka waan xiray shalay waay macnaa wax ficil mar aa samaysa waay ich habe die tu aufgemacht waan xiray waay. waa tahay sharci gooni ayuu wataa haddaad ila aragteen ka duwan kuwii hadda aan soo sharxinay يعني separable verbka ama ficiladan la kala sooci karo aufta ayaa la hormarinaya kadib geedi gudahay galaysaa taadi sideedu waa u dambeynaysaa laakiin geedi gudahay galaysaa aufgemacht ayaa la leeyahay sida tusaalaha hoose ee casaanka ama guduudka idinkaga muuqdaba. tusaale kale ee trembare verben ficilada la kala sooci kara ayaan ku soo qaadanaynaa anrufen micnaheedu maxay tahay waa wicid soomaha an waa eray ruvenna waa eray laakiin waa la isku dhajiyo oo hal micnay sameynaysaa marka ficilada noocaasa ayaa waxaa lahahdaa trembare verben waa la kala sooci karaa. marka ficil hadda jooga wax hadda jooga laga hadlaya marka rcs maxay noqonaya ruft an waa wicid ayada ama asiga wuuca aan ka dhigna marka gestren wax shala dhaca mar hore wicitaan dhacay. tusaalaha guduudka ama axmarka ama casaanka bal eeg ee hoose hast du Opa schon angerufen يعني مرة ما وعدي
awooga ma wacde mar hore waata aan soo qaadana marka tusaale kale waxaa jira marka inseparable kuwa aan laga sooci karin hadda waxaan aragnaa ficilo la kala sooci karo laba eray oo hal ficil isku ah laakiin la kala sooci karo waxaa jira kuwa ka reebanayaal ah oo inseparable verbs ah ficilo aan la kala sooci karin ah tusaale ahaan kan ayaan u soo qaadanaya besuuqen be waa eray suuqenna waa booqashadii eray wey laba eray wey laakiin markan waa ka reeban yihiin oo ma la kala sooci karo waa inseparable يعني ما لك الريبي مركان قسترن هابيق أما بسوقتي وتصالي شلي وحام بوقضي أيدي فيرب هابنا الاستعمالي فعل كن وحا قدام بس تاء اوكي سيدي كو غرانيسا marka inuu yahay wax shalay dhacay waxa ku garanaysaa ficilku waxa u dambeeyay tee bisuuqt sa u jeedanba haben ficilki haben waa la socdaa oo verb haben ah labadaas waa ku garanaysaa laakiin mid ogaada way ka reeban yihiin tren baran verben ficilladii separable-ka ama la kala soocay oo labada eray ahaa la kala soocay wuu ka reebayaan kuwan ma la kala soocay be waa eray suuqana waa eray laakiin ma la kala soocay waxa la yiraahdaa exceptions waa ka reebanayaal waa ka baxsan yihiin kuwii aan soo sharaxnay fadlan sida ula socda waxaan kaloo intaas idin raacinayaa tusaale ahaan vergessen Hannes hat sein Handy vergessen Hani wuxuu soo iloobay mobilkiisii had waa la socotaa ficilkana an way u dambaysaa haddaba cajiib sabab ay u kala duwan yihiin marka tan kore oo teeda u dambayso ay tan an ta u dambayso bal adiga isweydii ee soo saar waa soo sharaxnay wax kale ma aha ficilka u dambeeyo waa unregelmäßige verben shuruucdiisina waan idin soo sheegay waa tahay waxaad nood gareysaan ama ogaataan sidoo kale haddii ficilka uu bilowgiisu yahay b a n t g ver sida haddaba tusaale u soo qaadana besuuqen vergessen haddii eryadan ay ka bilowdaan ficilkaasu waa inseparable verbs oo maxaa lagala jeedaa yani way ka baxsan yihiin tren baran verben ficiladii la kala saaraa way ka baxsan yihiin oo ma la kala saari karo inaad fahanteen rajaynaya واتها إن بدنا نحن كسر العلنية verb haben فعل كهيس الشدا يعني إك هابه دو هاست مركي بريسنت تجيهد هذا بو حد وقتان مركي بريتيريتوم أما وحشلة تجي لقاه الله يوعن هيستي قاب كان أي الله استعماله إسكا يعني جسترين شلي واحد هيستي أما مرهر آت هيستي إك هاته أنا واحد هيستي دو هاتست أديك واحد هيستي RCS هاته فير أنا جا هاتن واحد هيستني إير إذنك ama adiga haatan waxaad haysateen si haatan iyagu waxay haysteen si haatan wata waxaad xasuusnaataan saaxiibayaal participle isfay state ima am ende participle isfayga mar walba ficilka wuu u dambeeyaa ficilkiisa jumlada dhamaadkeeda wuu u dambeeyaa ficilka participle always stands at the end mar walba wuu u dambeeyaa jumlada la socda واتاي داوديال مانتي برامجكني داس بيرفكت اما present perfect tense oo kaga hadleen wixii shalay dhacay sida dodge loo dhaho ama loo isticmaalo oo aan ku soo qaadanay qaybtii labaad qaybtii koobaad maanan soo qaadan verb haben ayaanu intaas ku soo gunaanudeen inta barnaamijka la ku kulmi doono sida iyo nabaadiin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh